ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu ka nabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado caqligiyo garaadkiyo garashada cudooniyo damiir caafimaad qaba عقليو garaadkiyo garashada cudooniyo damiir caafimaad qaba bulshayahay ku caankii وعلى مساركي عدة دور الليل مسؤول عمامة عدة دور الليل مسؤول عمامة تلبين عمكا هي عمكا وعلى مساركي maanta waxaanu ku ballanay 10 bisha Oktoobar inaanu shaacino tiradii dadkii qaatay istiwaan galiyay laakiin qaatay kaarkoodii 80% ay qaadatay 95% aynu gaarnay wadanka waxa kaloo mid Ilaahay loogu maxamdi naqa ah inaan serverka waxa soo shaqaa inoo qabtay ee inoo habeeyay ee inoo kala guray inaanu dal dibadda ay naga olin wuxuu inoo yaalaa xarunta taasuna waa mid kale oo xagga wanaaga iyo xagga isku filaanshaha aqoon ahaaneed iyo karti ahaaneed aynu gaadhnay intaasoo waxba waa steps cusub aynu qaadnay oo inoo horseedaya in doorashadu inoo noqoto mid xora xalaala oo qofna aanu laba goor codayn karin aanu leenahay nabadgelyaha inoogu dhacdo qofka ama maxayda muwaadinka hogaamin doona dalkan 5 sanadood soo socda Ilaahay baa qoray xagga Rabbi bay ka qoran tahay inagu waynu dadaalaynaa waxaanu ku dadaalaynaa inaynu dhaqdhaqaaq sameeyno marka ha lagu kalsoonaado waxaanu idinka mahadnaqaynaa xisbiyada hor fadhiya iyo dawladaba iyo dadweynaha iyo intana maqlaysaba sidii aad noola soo shaqayseen si aad noo siiseen kalsoonidiina inaan 7 xubnood idinku hagno doorashada 13 November dhacaysa aad baan idinka mahadnaqaynaa waana maxayday ku kalsoonahay kalsoonida aad siiseen iyo si aad noo aaminteen annaguna inaan fulino oo aan ku fulino inaanu Ilaahay hortii la hortagno 3 xisbi qaran inaanu dhex u dhahay jawaabta ama xasilka ugu dambeeya ee doorashadana sidoo Ilaahay nagu og yahay 7 ku wada tashanayna oo mid ka ah inaan u soo saarno idinkuna taa nagu raacdaan damaanada nagu siisaan naguna kalsoonaataan waxaynu deetana ka soo bilaabi doonaa galbeedka adeedu barbay ka soo baxday xaq galbeed baynu ka soo noqonaynaa gobolka Awdal waxa liistada kama dambaysta ah ee iska diiwaan galiyay ee xaq u leh inay codeeyaan ay tahay 102,517 oo kala noqonaya degmada Saylac 14,553 Lughaya 11,823 Boorama 64,160 halka ay degmada Bakina ka tahay 12,530 wadarta gobolka Maroodijeex ee liistada codbixiyayaashu waxay 249,220 oo kala noqonaya
gabiley 46,143 hargeysa 179,328 baligubadle 11,623 halka ay salaxlina ka tahay 12,135 gobolka saaxil waa 60,817 oo ay noqonaysa berberi 47,740 halka degmada sheekhna ay ka tahay 13,077 gobolka togdheer waxa kaadharkii qaatay ama ka codayn ay u tahay inay ka codayn karaan 147,440 oo kala ah degmada burco 118,411 oodweyne 22,155 halka ay buuhoodlana ka tahay 7,847 gobolka sool 63,698 weeyaan wadarta listada codbixiyayaashu degmada caynaba waa 30,251 laascaanood 23,022 xudun 5,302 taleex 5,123 gobolka sanaag 80,334 halka ay degmada gar'ada ka tahay 12,356 ceelaf weyn 17,945 ceeri gaabo 45,798 degmada badhanna 4,235 isugeynta wadarta gobolada ama liistada kama dambaysta ah ee codbixiyayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan 704,889 704,889 guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen hawl adag oo u baahnayd maxaa maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa waan hambalyeynayaa shaqada heerka ay soo gaarsiiyeen waxaana ilaahay uga baryayaa oo rajeynayaa inay ku guulaystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaas ay inoo fusho waxaan iyana halkan ka hambalyeynayaa oo runtii aan ku ammaanayaa madaxda xisbiyada halkan fadhiya oo aqbalay oo qaatay natiijadii ay halkan inooga soo shaaciyeen iyo hawshii ay soo guteen guddiga qaranku anigu waxaan ahay wasaaradda arrimaha gudaha waad ogteen oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaradeydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan oo aanay laga carqaladayn ama aan nabadgelyo xumo ku dhicin taas oo ay nagala shaqayn doonaan guddiga doorashooyinka qaranka iyo hay'adaha dhammaan hay'adaha kale ee nabadgelyada qaranka qaabilsan meel wanaagsan baanuna marinaynaa wada shaqayn baanu leenahay shirar badan baa noo socda waxaanu ku dalaynaa inaanu ku guulaysan doono ayaan filayaa waanu arrintaa ka midha dhalin doono inta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaadhaa qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhammaanteena Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aynu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la dhahay ka dhaxayso guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaanu halkan markaa uga mahadnaqno xisbiga u cid hadaanu nahay marka u horeysa waxaanu ku qanacsannahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaxday xisbi ahaan ku qanacsanna mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaadhasha iyo sidii loo adkeeyay
taa lafteedana siday u najaxdayna waanu ku qanacsannahay tirada maanta aad soo saarteenna iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto waanu ku qanacsannahay waanu idinku mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaynaa waanaanu ku kalsoonnahay waanaanu ku qanacsannahay runtii natiijadaas soo saarteen iyo hawshaa qabateen ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno waanaanu sidii hore laydula shaqayn jiray baanu ula shaqaynaynaa waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan laydmo waanaanu idinku gacansiinaa wax kastoo naga baahataan ilaahay waxaan noo rajaynayaa inaynu inta u dambaysana guul ka gaadhno 100% waanu ku kalsoonnahay runtii hawshaa gaadheen aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaanu nahay xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay somalilan ku guulaysanay oo somalilan ku guulaysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafurida hawshaa uga shaqeeyey aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno ananu ku ballan qaadayno inta hadhay ee doorashada haddaanu nahay xisbiga wadani inaynu u hoggaansanno wixii shuruucee qaranku leeyahay iyo wixii nidaama ee ummaddani ay ku heshiiso oo ah code of conduct ay xisbiyadu kala saxdeen aanu si fiican ugu hoggaansamayno ilaahayna aanu ka baryayno inuu doorashada inooga dhigo tu nabad iyo wanaag ku dhammaata hal mid damaanad baanu bixinaynaa xogta maanta baxday ee axsaabta qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha la siinaya qofka muwaadinka ee codaynaya indhihiisi kuma jiraan da'du dhashay kuma jiro goobtu ku dhashay kuma jiro meeshuu hadduu ilaahay ku intaasba waa wax qofka u xafidan oo ay tahay inaan cidna laga siin telefoonka qofka lagala xidhiidhayaa ma jiro waxaasina waa arrimihii aanu u damaano qaadnay maalintii aanu diiwaangelinta bilaabaynay imaka mana jiraan xisbina namana weydiin doono kana bixi maysa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka taasi waa damaanadii aanu markii hore qaadnay imaka waxaynu u yeedhaynaa si uu gudoomiyaha komishanka doorashooyinka iyo komishineeradu ay ugu wareejiyaan xogtii xisbiga u cid in ay loo wareegaan wadharaartii ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo makoyana xisbiga kulmiye maxamed wadharaartii ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo farsamo ee xisbiga wadani u qaabilsan komishanka doorashooyinka qaranka kulba wasaaradda arrimaha gudaha oo u qaabilsan in xogtana qofka muwaadinka marka la sugayo iyada ilaa ay soo marto aan qofka la diiwaan gelinayn marka waxaynu u yeedhaynaa wasiirkeeda wasaaradda arrimaha gudaha oo isna runtii